heerkii ugu xumaa gobolka Banaadir waxaa gaaray isqaqabsiga dhulalka degmooyinka daafaha ku yaala. Degmada Kaxda ayaa kamid ah meelaha dhulalkeeda la isku haysto. Dad maanta Muqdisho ku kulmay ayaa sheegay in gudoomiyaha degmada Kaxda uu dhulboob ku hayo dhul iyagu gaar ay u leeyihiin. Waxaana dadkan ay isugu jiraan haween iyo rag, iyagoo soo bandhigay cadeymo muujinaya in dawladii kacaanka ay dhulkan milkiyeed ahaan iyaga u cabirtay. Waa kuwan qaar kamid ah dadka cabanaya iyagoo dhanka kalena dawladda u jeedinaya in ay wax ka qabato dhulboobka lagu hayo sida ay qabaan. isku nood meeshan mowduuc ku saabsan dad dhibanayaal oo hantidoodii muddo dheer ka daba wareegayay oo hantidoodiina la ilaa hadda cid toos ay u wala xiriiraan ama cid toos intay hoos tagaan oo official oo xafiis furan oo toos intii dokumentadooda iyo wax ay wataan maarta u qaabilaan ilaa haddana la waxaan isku yimid cabasho arin cabasho ku saabsan hanti dhuleed oo naga maqan. hantidaas dhuleed ee naga maqan waxaan maleynayaa sistemyo kala duwan ayaan u raadin maagna sistemkii kala duwan u raadin maagnana waa nagu surugal weys taasuna waxa sababtay inaan media ka hadalno. magacaygu waa Saada Cabdi Ibrahim waxaan ahay dhibane dhulkiisii lagu haysto qaybta Dharkeenli marka laga haysto marka waxaa nagu qabsaday gooflihii banaan degmadanu nimi adigu degmadii waxba way qaban weyday waa ka gudbay maxkamadaanu tagnay maxkamadii warqad bay qortay khilaafaadkana loo gudbay gobolkana loo gudbay ka bacdina khilaafaadka wali wax cad oo nala siiyay ma jirto qaar waxa bay nagu oranayaan naf waxa ka samir dhulkan waayo waxaad wadataa warqadii siyaad barre cascasa kuwa cad oo carta la yiraahdaa socda waxaan kaloo anigu gaar ahaan dacwo uga ahayn injineerka la yiraahdo Cali Yuusuf ee dhulka cabiray ninka dunida madaxa isu galiyay waa goofle laga hadlay oo khiyaartii igu horeysay ka hadashay wuxuu ku xusnaa dhac umadeed iyo barakicin hantiyeed caasimada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho. qofku haddii one personal qof wax la dhex maraan ama documenti uga khaldamo ama boos uga khaldamo sharci iyo idaaradii waxa ka furan maamul iyo maxkamad system lagu kala saarayna leedahay laakiin dhul qadaacul caama oo sharci dawladeed ku go'ay oo taariikhda historygeeda la sheegayo 85 ku go'ay documentigiisu oo article-ka 10 sida uu qabo iyo sharciga qadaacul caamka mulkiyada qofka bini aadanka ay ku yeelan karo wax sabra looga gooyo nabi maxamed baa u horeeyay kaleey salaatu wasalaam على هذا المؤمن جوب جوب مقدشو.